isbahaysiga nabadda Jubbaland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladaha siyaasadeed iyo umuuraha cakiran ee deegaanada Jubbaland ka aloosan. Waxa uuna isbahaysiga muujiyay walaaciisa ku aadan maqaamka ay dowladda federaalka siisay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isbahaysigu ku tilmaamay mid aan qaanuunka dalka iyo rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland aan ku iman, balse ay tahay arrimo la siyaasadeeyay. Isbahaysiga nabadda Jubbaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilay in Axmed Madoobe oo laga diidan yahay deegaanada Jubbaland ogolaanshiyo buuxo oo shacabka deegaanadaasina aan haysan ay u gaar yeeshay ka talinta aayaha deegaanadaasi iyo wadaxaajoodka qaran ee la doonayo in aragti midaysan looga qaato doorashooyinka dalka ku soo fool leh dabayaaqada sanadkan iyo waliba horaanta sanadka inagu soo fool leh ee 2021. ugu dambeyntii isbahaysiga nabadda iyo horumarinta Jubbaland ayaa isagoo ka duulaya danaha iyo rabitaanka bulshada Jubbaland waxa uu soo bandhigayaa qodobo aasaas u ah aayaha iyo waliba masiirka deegaanada Jubbaland, isla markaana xal waara looga gaari karo ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhaxeeyo bulshada deegaanadaasi iyo waliba maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam. waxa uuna isbahaysigu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya baaqaasi oo ku saabsan in dowladda federaalka aysan siin maqaam uusan mudnayn Axmed Maxamed Islaam. waxaana marka hore uu isbahaysigu soo saaray in siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanka Jubbaland loo madax banneeyo masiirka siyaasadeed iyo kan bulsho si ay ayaga uga tashadaan aayahooda iyo mustaqbalkooda siyaasadeed, isla markaana ay dhidibada ugu taagaan is-ogol iyo waliba maamul la isku raacsan yahay. in dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiye Axmed Maxamed Islaam ay fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ay ka waantoobaan gorgortanka siyaasadeed oo u xaglinayo labada hogaamiye ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ayna danahooda siyaasadeed ka hormariyaan in xal waaro oo bulshada deegaanada Jubbaland ay u dhan tahay si dhab ah loo raadiyo. isbahaysiga nabadda waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu la yimaado qorshe siyaasadeed oo ka duwan kii hore, isla markaana uu qayb ka noqdo hanaan dib u heshiisiin oo ku salaysan xal u helidda tabashooyinka siyaasadeed ee Jubbaland si looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee ragaadiyay deegaanada Jubbaland oo ka mid ah goobaha ugu daran oo ismaandhaafka siyaasadeed uu ka jiro marka laga hadlayo waliba isdiidanaanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed. isbahaysiga nabaddu waxa uu ku baaqayaa in wasaaradda gaashaandhigga ee heer federaal loo madax banneeyo arrimaha amniga iyo sugidda xadka ay Jubbaland la wadaagto wadamada dariska ah. ugu dambeynna waxa uu isbahaysigu ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Maxamed Islaam inay xaaladaha cakiran ee degmada Ceelwaaqe gobolka Gedo ay xal degdeg ah u helaan si dhibaatada joogtada ah ee ciidamada dowladda Kenya ay ku hayaan shacabka deegaanadaasi meel loo saaro iyo waliba burburkii dhaqaale iyo hantidii ku burburtay duqeymaha Kenya dadkii lahaa magdhow laga siiyo. sidoo kalena ciidamada Kenya ee tacadiyada halkaasi ka wado lagala xaajoodo tacadiyada ay geystaan, isla markaana laga hor istaago falalka bini'aadnimada ka baxsan ee halkaasi ka geystaan.